aan ku warrama saaxiib saakay magaalada muqdisho waxaa ka taagan xaalad cakiran guud ahaanba waxaa xiran inta badan suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho kaliya ma ahan suuqyada sidoo kale waxaa xiran goobihii ganacsi ee ku yaalay wadooyinka ugu caansan magaalada muqdisho tusaale saakay waxaa xiran inta badan goobihii ganacsi ee ku yaalay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho oo sidoo kale ah suuqa ugu weyn Soomaaliya waxaa sidoo kale xiran suuq bacaad qaybo ka mid ah wadada Maka al-Mukarrama ilaa iyo Zobe ilaa iyo Banaadir sidoo kale waxaa xiran qaybo badan oo ka mid ah suuqa Xamarweyne tani waa tallaabo ay qaadeen ganacsada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada muqdisho waxayna ku diidan yihiin canshuurta marjantiga oo ay dhawaan dawladda Soomaaliya soo rogtay xalay bayaan ayaa ka soo baxay ganacsatada magaalada muqdisho ama ganacsatada gobolka Banaadir waxa ayna cod dheer ku muujiyeen in ay diidan yihiin canshuurtan cusub oo ay soo rogtay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya qodobada ay soo saareen ganacsatada Soomaaliyeed waxa ugu waaweynaa laba qodob oo ah in ay guud ahaanba joojin doonaan xiri doonaan ganacsiga magaalada muqdisho ilaa xal laga gaaro canshuurtan ay soo rogtay dawladda Soomaaliya waxa kale oo sidoo kale ku jirto ay soo rogtay ama go'aankooda waxa ka mid ahaa in ganacsada magaalada muqdisho aysan wax ganacsi ah adeeg ah aysan kala soo degi doonin dekada weyn ee magaalada muqdisho iyaga oo tilmaamay in laga qaado canshuuro badan oo xad dhaaf ah waxayna sidoo kale ku sheegeen in barab badan ama kontaroolo badan oo ka soo bilaabanaya dekada ilaa iyo xaruntooda ganacsiga adeega uu ka gaarayo canshuuro badan oo xad dhaaf ah laga qaado ganacsatada xalay ay bayaankaas soo saareen sidoo kale bayaankooda waxa ku jiray degniino ay u dirayaan laba hay'adood oo ah hay'adaha isgaarsiinta iyo sidoo kale shirkadaha bangiga waxa ay sheegeen oo ay degniin u direen hay'adaha isgaarsiinta oo haya xogaha iyo macluumaadka ganacsiga in aysan gudbin karin sifo baalmarsan sharciga u degsan ayay tilmaameen waxa ay sidoo kale degniin u direen shirkadaha bangiyada ee ku yaala Soomaaliya isla markaana haya dhaqaalaha ganacsatada gobolka Banaadir ama ganacsada magaalada muqdisho in aysan macluumaadkoodu marnaba bixin karin waxay ku sheegeen arintan ilaa xal laga gaaro in aysan furi doonin goobaha ganacsi ee magaalada muqdisho markii ay tallaabadaasi ay qaadeen dawladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada booliiska iyo sidoo kale kuwa nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa lagu soo waramayaa in ay saakay u jihaysteen suuqa weyn ee bakaaraha waxaa lagu soo waramayaa in halkaasi lagu xiray dhowr suxufi oo ka mid ah kuwa saakay u aaday suuqa bakaaraha in ay ka soo waramaan gadoodka ay sameeyeen ganacsatada magaalada muqdisho sidoo kale ganacsatadu waxa ay sheegeen in aysan marnaba aqbali doonin canshuurtan ay dawladda Soomaaliya soo rogtay ilaa laga xaliyo arinta taagan oo ay ku sheegeen canshuuraha badan ee xad dhaafka ah ee laga qaado ganacsatada magaalada muqdisho dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya oo xalay arintan ka hadlay waxa uu dhankiisa sheegay muhiimadda ay canshuurtan u leedahay Soomaaliya waxa uuna tilmaamay laba arimood oo muhiim ah waxa uu yiri madaxweynaha Soomaaliya canshuurtan waxa laga qaadi doonaa oo kaliya nidaamka marjantiga ah oo ay isticmaalaan ganacsatada Soomaaliyeed waxa uu sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu bayaaniyay in adeega EFC-ga ama shacabka marka dhexdooda ay lacag isku tuurayaan aysan wax canshuur ah ka go'i doonin si kastaba ahaatee lama oga halka ay ku dhamaan doonto khilaafkan soo kala dhaxgalay ganacsada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada muqdisho iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya taasi oo ay sababtay canshuurta danabaysan ee lagu magacaabo VAT oo ay dawladda Soomaaliya dhawaan soo kordhisay maantana ay tahay muddada ay u cayintay dawladda Soomaaliya in ay bilaaban doonto hirgelinta ama dhaqangelinta canshuurtan dad badan waxay isweydiinayaan canshuurtan ma waxa laga qaadi doonaa oo kaliya magaalada muqdisho mise waxa ay sidoo kale ay gaari doontaa guud ahaan Soomaaliya oo dhan aan macluumaad kale kugu daro dhawaan Jubbaland waxa ay sheegtay in canshuurtan aysan aqbali doonin sidoo kale waxa jira isteeto kale ama dawlad goboleedyo kale oo lagu soo waramayo in ay diidan yihiin
canshuurtan faad oo ay dowladda Soomaaliya soo kordhisay balse weli aysan si cad bulshada ugu sheegin go'aankooda. haddaba canshuurtan ma waxaa laga qaadi doonaa magaalada Muqdisho oo kaliya mise waxa ay gaari doontaa guud ahaan Soomaaliya? adiga ayaan ku dhaafay jawaabteeda.